madaxda iyo mas-uuliyiinta aan wada soconay heer federaal iyo heer dowladda galmudug, maamulka gobolka mudug, maamulka magaalada Xardhagaxley, shacab weynaha reer Xardhagaxley qaybahooda kala duwan, dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan waa idin salaamnay. waxaan leenahay maalin wanaagsan walaalayaal. shacab weynaha magaalada Xardhagaxley waxaan uga mahad celinaynaa sida diiran walaalnimada leh ay runtii ku jirto, aad iyo aad isu soo baxa leh. waa uga mahad celinaynaa nuso dhaweyseen. runtii aad bay noo farxad gelinaysaa sida aad dowladnimada diyaar ugu tihiin, ugu diyaarsan tihiin, noogu soo dhaweyseen, u garab taagan tihiin. in badan baan idiin mahad celinaynaa. intaas kadib magaalada Xardhagaxley waxaan ku nimid safarkii iyo socodkii aan meelo badan oo galmudug ka mid a ku soo marnay, oo ahaa safarkii nabadda iyo xoogaal u noqoshada xaaladaha ay ku sugan yihiin deegaanada galmudug. waxay si gaara Xardhagaxley noogu farxad gelisay inay tahay goobtii ama xaruntii dhulbeereedka ama beeraha galmudug. waa dad runtii reer galmudug u horeeya, wax soo saar leh, sameeyey horumarkii iyo dadaalkii loo baahnaa. si gaarana waa ugu tixgelin doonaa oo ka duwan runtii si ay reer galmudug u daysadaan, sida ay u fakereen inay dhulbeereed sameeyaan, wax soo saar sameeyaan, magaalooyinka kala gedisan looga qaado qudaartii iyo wax soo saarkii. intaas kadib waxaan leenahay waaba ku dadaasheen, dhirtu aaday u fiican tahay, waan u badan tahay. iska ilaaliya in dhuxul laga jaro deegaanka Xardhagaxley. guud ahaan galmudug waa ka mamnuucnay, laakiin reer Xardhagaxley waa dad wax qabsaday, tashaday, ay ka muuqato horumar. marka sidaa darteed waa isku filantihiin in dhuxul laga jaro aqbalinina. meelaha baahiyaha la sheegay oo magaalada laga sheegay runtii waxbaan ka qabanaynaa, mid baanan haddii ilaa yidhaahdo midba hay-adda ku habboon baan ku wareejinaynaa. ha ugu horeeya biyaha oo de nolol biyaha ka horeyn kartaa aanay jirin. haddii ilaa yidhahdo waxa ugu soo horeeya waa ceel biyood, waa laga hirgelinaya Xardhagaxley. meelaha aad wax ka qabsateen waxna idinka dhiman yihiin, inta idinka dhiman baa laydinkugu darayaa insha allahu tacaala. maamulka iyo odayaashaan is wareysanaynaa, hay-adihii iyo wasaaradihii dowladda galmudugna waa ku wareejinaynaa, waana laga howlgelayaa baahiyaha say u kala horeeyaan. walaalayaal, mudanayaal iyo marwoyin, reer Xardhagaxley waxaan ka rabnaa maanta galmudug waad la socotaan, horay u socotaa, waa tashatay, waa horumarkeedii iyo hay-adaheedii waa ku tala jirtaa, waana waxna waa u qabsoomeen. reer Xardhagaxley waxay si gaara ugu dhow yihiin, xiriir ula leeyihiin magaalada Hobyo oo galmudug u ah magaalo halbowle ah. sidaa darteed qaybtiina ka qaata amnigeeda, guud ahaan amniga, horumarka meelaha ka faa'iidaysanaya oo u dhow oo sida gaarka ay Hobyo u taabanaysaa ka mid tihiin.
guud ahaanna reer galmudug waxaan noo ballanaa inaan gacmaha isqabsanno insha allahu tacaala isku tashanno guushana wada xaqiijinno si gaar ahaan idiin xasuusanaynaa runtii reer xeer dhagaxley diyaar garowga quruxda badan soo dhoweynta dowlad jacaylka kalsoonida idinka muuqata sidaa wax badan u qabateen si gaar ahaan idiin xasuusanaynaa reer galmudug waxaa ka tihiin meelaha ugu horumarsan dhulbeereedkii guddoomiyaha magaaladu ballan qaaday oo galmudug u ballan qaadana mahad badan baan ka celinaynaa waana guddoonnay halkaas waxaa ka cad sida ay reer xeer dhagaxley u horumarsan yihiin sida ay u fakerayaan